munaasabadan oo lagu xusay maalinta caalamiga biyaha adduunka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowladda federaalka Soomaaliya waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka dalka iyo mas'uuliyiin kale mas'uuliyiinta ka hadashay munaasabadda ayaa si weyn uga hadlay muhiimadda ay leedahay shacabka Soomaaliyeed ay helaan adeegyo biyo nadiif ah meel kasta ay joogaan ujeedooyinka ugu waaweyn ee maalinka looga hadlo ayaa waxa ay tahay in looga hadlo biyarida adduunka ka jirta qaasatan wadanka markaasi wadan kasta xaaladda uu ku sugan yahay biyaridiisii waxaa looga hadlaa biyaha iyo wasaqowgiisii biyaha markaasi oo naqda kuwa wasaqaysan ama kuwa la wasaqeeyay waxaa looga hadlaa biyagelinta magaalooyinka iyo tuulooyinka ama miyiga iyo magaalada waxaa looga hadlaa caafimaadka biyaha ama sixada biyaha waxaan qabanay public event oo shirkadaha ka shaqeeya in dad badan ka joogaan aan rajeynaya oo aan dood badan dhex martay waxa aad looga hadlay yani shirkaduhu way yimaadeen shacabkuna way yimaadeen wasaaraddu way joogtay maamul goboleedadu way joogeen waxaan aad uga hadalnay biyaha nadiif ah sidii magaalada Muqdisho oo caasimadda ah koow horta ay u heli lahayd shirkaduhu doodo fara badan aan dhex mareen doodaha waxyaalaha cajiibka ahaa waxaa ka mid ahaa waxay dhaheen horta يعني أيوة ما بكنترولانبا وزارة النشاط كم لهن أو دكان وعيد هن أنا إلى دولة نمط تيجي برسنة أيام دكان بيسوسين إني وصوت دالني مش أنا محسوب جالسيني وعربنا هدانا هاي جمهورية الفدرالية الصومالية إن أن إسكوبو بورينو وحيابها أنك واقعي عد تذكرنا هريالله جود هان مكان هو تذكرنا تذكر الصومالية قارهان dhalinyarada waad ogtiin mujtamaca boqolkiiba 7 ilaa 75 ayaa dadkeenu waxa ay yihiin dhalinyaro marka waa inaan marka nolosha bini aadamka oo ay laga maarmaan u tahay biyaha waxa noole iyo ma noole marka leeyahay noole iyo ma noole bini aadamka xoolaha beeraha intaas oo dhan markii laga tago هذا بابور كي يحتاج يلا أنا مصعون كه. نحن نهدي على كل جوينا هاي إن أنا ريت بيها وحكرام. وزارتنا نقود شريني فشيء إني مرنا نجفتي كان دمنا غيب وين بكتة. لو كنت طلعت وانك عبارة ما كي العادة يوم عن سمعيني دراسة وين عن سمعيني نصابها كنا عبارة. إنت صابرت الهاي كاني هذا أنا محاسيو حجي من عبارة العادة. وحوي نوصل بحبة حين بيلان. يدينك labada arrimood ay wax noqdeen labada ugu waaweyn anagoo tiikaan baqaadanay aan qorshahan hadda qorayno saadiga waxaan uga dhignay in dadku sida uu sheegeen loogu qoro lana gaarsiiyo yoolkooda si biyaha looga haqabtiraado Soomaaliya labadii sano aan soo dhaafnay waxaan soo qabanay miyiga fog baadiyaha ayaa waxaan 26 eel ayaan soo dayactirnay 22 eelna waa soo qodnay oo wasaaradda ay qoday wasaaraddu waxaa u qorshaysan maanta ay sheegaysaa sanadkan 2019 in 100 eel ay qodayso oo ay ka qodayso miyiga fog in biyagelin ay ku samaynayso magaalooyinka ay ugu horeeyaan Muqdisho iyo Baydhabo iyo Kismaayo haddii Ilaahay yiraahdo Cali Cabdulqaadir Cali warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho